xilli xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ay tahay mid kacsan dhinacyada dawladda federaalka Soomaaliya iyo mucaaradkana ay ku heshiin waayeen shir ay galwadeen ka ahaayeen dawladaha Mareykanka iyo Ingiriiska ayna isku afgaran waayeen arrimaha doorashooyinka iyo wax ka beddelka dastuurka inta badan beesha caalamka ayaa soo saareysay war-saxaafadeed maalmihii u dambeeyay urur goboleedka IGAD ayaa ugu baaqay dhinacyada siyaasadda Soomaaliya in ay sii wadaan wada hadallada siyaasadeed kadib markii uu burbur ku yimid wada tashiyadii maalmahan ka socday magaalada Muqdisho caasimada dalka ee u dhaxeeyay dawladda federaalka Soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradka war-saxaafadeed ka soo baxay xogayaha IGAD ayaa lagu sheegay in ururku uu soo dhaweynayo wada hadallada tooska ahaa ee dhacay intii u dhaxaysay 13 ilaa 15 May 2026 isla markaana dhinacyada lagu dhiirigelinayo in ay sii wadaan wada xaajoodka si xal looga gaaro arrimaha wali taagan IGAD ayaa carabka ku adkaysay in si socoshada wada hadallada siyaasadeed ay muhiim u tahay ilaalinta xasiloonida Soomaaliya xoojinta dawlad dhiska horumarinta nidaamka dimuqraadiyadeed iyo ilaalinta midnimada qaranka sidoo kale ururku wuxuu ugu baaqay dhammaan saamilada siyaasadeed Soomaaliya in ay gaaraan xal wada ogol ah oo kor u qaadaya kalsoonida shacabka iyo geedi socodka dastuuriga ah ee dalka Soomaaliya warbixinta IGAD ayaa ku soo aadaysa xilli ay soo tarayaan walaacyo caalami oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed Soomaaliya gaar ahaan khilaafka ka dhashay doorashooyinka muddo kororsiga iyo wada tashiyada fashilmay dhanka kale midowga Afrika iyo qaramada midoobay ayaa iyaguna hore ugu baaqay siyaasiyiinta Soomaalidu inay gaaraan heshiis siyaasadeed oo midaysan iyagoo tilmaamay in Soomaaliya ay gashay marxalad siyaasadeed oo kala guur ah oo u baahan tanaasul iyo is-afgarad siyaasadeed baaqyada beesha caalamka ee soo tarahay ayaa muujinaya walaac ku saabsan suurtagalnimada in khilaafka siyaasadeed uu saameyn ku yeesho arrimaha amniga dagaalka dhanka al-shabaab iyo geedi socodka dawlad dhiska Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku adkaysanaya in muddo xileedkiisa uu ku eegyahay bisha May 15keeda 2027 isagoo sheegay in arrintaas ay dhaqan gashay kadib markii la ansixiyay dastuurka 30 maalmood kadib dhinaca kale madaxweynuhu waxa uu xusay in ay hadda ugu ambaqaadayaan sidii loo dhameystiri lahaa qodobada dastuurka dhinaca kalena loo kala saari lahaa hay'adaha dawliga ah kusoo duuduubo xaaladda dalka ayaa hadda mid u muuqata mid ay isku diidan yihiin dhinacyada siyaasadeed iyadoo dhinaca kale ay soo baxayaan in inta badan diblomaasiyiinta Soomaaliya ka howlgala ee fasaxa ku maqnaa ay maanta soo galeen magaalada Muqdisho si ay uga arrinsadaan maalinta Isniinta ah xaaladda dalka